halkani waa Daaxa weyna dhexmara magaalada Burco waxaana uu hooy u noqday xidhiig lagu qolo xoolaha wasakh iyo qashin xad dhaaf oo buux dhaafiyay Daaxaasi taasoo sababi karta inay ka dhalan karaan cudurro halis oo ay ka mid yihiin shuban biyoodka golaha deegaanka degmada Burco loo xisaaray inay qashinka ka guraan magaalada ilaaliyana bilicda magaalada ayaa gabi ahaanba gabay hawlahaasi iyaga oo tamartooda noqotay in hadallo isku mariyaan warbaahinta iyo ka hadalka danahooda gaarka haddaba dadka danyarta ee ka agdhow Daaxa weyna magaalada Burco ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dhibaatada ka jirta Daaxaasi iyo halista caafimaad darro ee ka dhalan karta Daaxaasi iyagoo noo sheegay in dhowr jeer u gudbiyeen cabashooyin la xiriira arintani dawladda hoose degmada Burco balse aanay waxba ka qaban cabashooyinkooda waxayna baaq dheer u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Dhiig Cabdi urku jirta iyo dhiiga iyo uuska iyo waxa urku jiraya hargaha iyo waxaana meesha lagaga taga imka dabaljiila sida dhacayso waa ogtiino qalmuunkeeda halkan lama fadhi karo habeenkii marka ay gudooxay isugu yimaado ay oo dhabana meesha isugu yimaado bahal oo dhabaa yimaado waraabayaal baa yimaada wixii alla wixii cuni jiray xariigta ku noolaan jiray ee raqada cuni jiray togay soo xulaana way yimaada shaqada dhexe marka ku seexseexdo halka laftarkeeda bulaacad biyaha marto oo taw ku shubto qashinka iyadu way isku bilbaan oo isku qoosmaan mar hore dawladda hoose waa kala hadalay bulaacada iyo qashinka adigu wax badan lagama qaban anaga laftarkeegana waxaa laga soo gaadhay dhibaato laga soo gaadhay dacwadii aanu dacweynay anaga wadaan noo raac walaal maanta dhibaatada ugu weyn magaalada xaafadan haysta waxa weeye waa ku daafadii oo ku soo baahday talabaadna waxa weeye waa bulaacada waa biyo iyo qashis galay waxa ka dhalan kara wad garan kartaa wadogtiino meelo kamid ah Soomaaliland waxa ka dhashay daacuunki waxaan ugu baaqanaa xukuumadda Soomaaliland ugu horay madaxweyne Muuse Dhiig Cabdi inuu wax si degdeg wax uga qabto golaha deegaanka magaalada Burco wax kale ku shabakaysan khilaaf dhexdoodii ka dhex jira maanta uma diyaar ah inay wax ka qabtaan waxaan ugu baaqanaa madaxweynaha Soomaaliland safarka ugu horeeyay ku yimaado Burco inuu golaha deegaanka degmada Burco kala fadhi u sameeyo waxaan ugu baaqanaa xukuumadda xirdigteen dhexdeeda noqoto wada aragtaano wakaalka qashinka iyo wax kasta ka buuxaan iyo baqtigii caloolihii mindhicirkii dadkan maxaa loogu talagalay meenay dhintaan aad uga cabanaynaa gudaafada magaalada dhextaal ee aanu tiraba in badan golaha deegaanka uga dacwoonay wax allaale wax laga qabtayna aan jirin toga marka laga soo qabto ilaa meesha la yiraaho maxay haytay maxadka hoos loo raaco ilaa riiga la yiraaho jadleeye inta u dhaxaysa iyo toga bartamihiisaba in laga dhigay xeradhiigtii la raray in loo soo bedelay magaalada bartamaheedii annaguna aanu nahay dad masaakiin oo xaafadda iska dacal saaran dhul aan lahayn oo jarka iska laalaada oo halka dabkiina lagu shiday oo gudaafadii magaalada oo dhan la keenay oo 7 jeer aan uga dacwoonay maxay haytay golaha deegaanka aanu waxaan laga qabto xeradhiigta la dhex dhigay magaalada dhexdeeda aad iyo aad uga cabanaynaa biyaha togaga ka imanaya maalin walba togaana qaata maxay ahaytay waxa noo soo gasha maxay ahaytay dabka meel la maro oo dabka laga baqtiyo xitaa xaafadeedu male tiraba 5 jeer way gubatay warbixintii riboodka waanu geynay saacadaana cid kama hayno ilaa intan dawladda cusub dhalatay haddaanu nahay xaafadda garbada si2 haddaanu nahay waxaanu ka hadlaynaa dawlad la'aan iyo shicib la'aan iyo gudi la'aan ayaanu ka hadlaynaa ku daafadii baan soo gashay dixdii baan nagu duntay ku daafad baan saaranahay habeen walba way nagu duntaa ku daafadu ma timaado dawladda waxaan ka codsanaynaa sharafta leh iyo madaxweynaha cusub ee la doortay waxaan ka codsanaynaa in degdeg loo soo gaaro degdeg oo halka wax looga qabto ayaan dawladda cusub ka codsanaynaa aad iyo aad in loo soo gaaro ayaan u dooraynaa waxaan adala soo gaaro ma haysanaa anagu dawladda hoose dawladda hoose wax noo qabata ma haysanaa ku dhig Soomaad garan عيلتي أنا كذا أشتري هم خليجوا نقتبه هكذا دارا لقد سكوا كذا حشيش بالكوكرة معلوم والبلد جروا بالصادقة أولو بيرة أولا شاذا شتا شبقوا وقيسنا غسي أقل كذا سريع شبقوا ولا بركة ما نودر جيرا لو قال يا نودر قربنا وسارنا نكوني أنا لا جوار ما يجي arrintan ayaa haddii si degdeg ah wax looga qaban waxa ay sababi kartaa xanuuno Axmed Yuusuf Cabdi Axmed Shaafi TV-ga caalamiga ee SomNews TV Burco